waa ducada keliya ee kuu soo jiidaysa deganaanshaha iyo irsaaqadda. ilaahayna wuu kaa ajiibayaa tabaaraka wa tacaala ducadan. waa duca qiimo badan oo qaaliya, waa hadiyad aan idiin soo dirayo walaalayaal meel kastaad joogtaanba. ducadan ha dayicin, ilaahay kuma dayacaya tabaaraka wa tacaala. ilaahay idamkiis tabaaraka wa tacaala ducadan wax badan oo maanta kaa maqan ayay kuu soo jiidaysaa. dadkeenna in badan oo ka mida waxay la daalaa dhacayaan yaraanta dakhliga soo gelaya ama irsaaqadda. hadday xataa xoogaa haystaan baraka la'aan ayay ka cabanayaan. waxaaba laga yaabaa inay shaqaysanayaan si joogto ah oo wax la soo baxayaan, laakiin faa'iido badan ma arkaan. waxaa laga yaabaa dukaan inay furtaan, dukaankii ay baraka ka waayaan, kadib dukaankii ay ka guuraan meel kala degaan. sidaas ay u wareersan yihiin. dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa irsaaqadda iyo xoolaha inay uga imaadaan meel aysan filaynba, ayagoon u daalin, ayagoon u dhididin. midkaan dhididaya dadaalayana inuu waxba waayo ama barakala'aan ay ku dhacdo wixii soo gelaya ayaa laga yaabaa. sidaasay nolosha u kala duwan. mid kaleo waxaad arkaysaa wax yar ilaahay siiyey, laakiin baraka ilaahay ugu daray oo aad barakadiisu u badan tahay, oo risqigiisa aad u barakaysan yahay. wax kasta ilaahay baa qoray tabaaraka wa tacaala. irsaaqadaada allah qoray, hase yeeshee dadaal ayaa lagu yidhi. ilaahay wuxuu yidhi wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun. laakiin asbaab ayaa la rabaa iyo inaad ilaahay talada saaratid tabaaraka wa tacaala. inaad dadaashaa la rabaa oo aad shaqaysatid. shaqadaas iyo dadaalkaasna waxaa jira shay kale oo irsaaqadaada sii siyaadinaya, oo ah ilaahay inaad u dhowaatid oo aad raalli gelisid. salaaddu waxa weeye walaalayaal tiirka diinteenna. sidoo kale ilaahay wuxuuna amray inaan samayno akhrisonno adkaarta gelinka hore gelinka dambe. salaadda subax markaad tukatid adkaaru sabax akhriso intaada dukaankaada iyo shaqadaada aadin. kadaalika casarka markaad tukatid adkaarulmasaa iyo adkaartii galabta akhriso. istikfaarta badi, sababtoo ah istikfaartu waxay furtaa albaabada kaa xihan. sidoo kale ha hilmaamin salliga nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. barakada ayuu kuu badinayaa salliga nebi moxamed. sabab buu u noqonayaa irsaaqadaadu inay kuu barakowdo. wax yarba aad haysatide inay kuu bataan oo kuu barakoobaan ayaa salliga nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ka qayb qaadanaya. ka tegin gaar ahaan maalinta jumcaha ah. sidaasoy tahay walaalayaal, nebi moxamed ducuu nooga tegay khaas ah oo aan dhahno xilliga ay naga haysato mushkilad nolosheenna. ducadaas oo noo dardaarmay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam si aan u dhahno marka irsaaqadu nagu yaraado ama faqriga uu sii siyaado. maalin maalmaha ka mida nebi moxamed nin ansaarta ka mida ayuu arkay oo masaajidka jooga, weliba wakhti aan wakhtigii salaada ahayn. markaasuu su'aal weydiiyey oo wuxuu yidhi maxaa halka ku fadhiisiiyey? murugaana kaa muuqatee sababtu waa maxay? wuxuu yidhi rasuulka ilaahayo waa murugaysanahay, muruga waxay igu haysa dayn aan qabo rasuulka ilaahayo. rasuulkaa wuxuu ku yidhi ma ku baraa oo ma kuu sheegaa hadal haddaad tidhaahdid ilaahay uu kaa qaadayo murugadan, dantaadana uu kuu gudayo, dayntaana aad iska bixinaysid. rasuulka ilaahay uu ii sheego waa middaan u baahnaaye. markaasuu nebi moxamed u sheegay ninkaas reer ansaareed ah oo saxaabadiisa ka mid ah, annagana wadda ayay noo tahay iyo qof kastoo dhibaatada ay qabsato, waana ducada. wuxuu yidhi waxaa dhahdaa allaahumma innii acuudu bika min alhammi waalxasani wa acuudu bika min alcajzi waalkasali wa acuudu bika min aljubni waalbukhli wa acuudu bika min ghalabati addayn wa qahri alrijaal. gelinka horena akhriso, gelinka dambena akhriso hal jeer, yacni hal mar. ilaah waxaan kaa magan galay murugada iyo hammiga walwalka. waxaan kaloo ilaahu kaa magan galay oo iga saartaa cajsiga iyo wahsiga. waxaa kaloo kaa magan galay fulaynimo iyo bakhaylnimo. waxaan kaloo kaa magan galay dayn iga tan badata iyo dadku inay iga adkaadaan, ama raggu ama cadowgu inuu iga adkaado oo igu farxo. waa kaa magan galay ilaahayow tabaaraka wa tacaala. waa ducadaas, ducadaan jecelaystay naftayda iyo tiinaba inaa u soo gudbiyo. subaxiina hal mar akhriso, galabtiina hal mar akhriso, mar kastoo muruga dareentidna akhriso. niyaddaadana si dhaba uga dhaadhici ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu kaa ajiibayo kuuna soo jawaabayo. jazaakum allahu khayran. sii faafiya, laga yaabee qof murugaysan inaad u dirtid oo ajar weyn aad kasbatid. hana hilmaamin badbaada channel inaad ka mid noqotid bahdeeda. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.